oo aanu kula kulanay madaarka Heathrow Airport markii uu kasoo degay uu soo gaaray magaalada tan London. Sidoo kale waxaa halkaasi ku sugan oo isaguna aan la kulanay Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo aanu iyagana isna wareysi kooban aan halkan kula yeelan doono. Mudane Ra'iisul Wasaare ku soo dhawow Somali National TV. waa mahadsantahay adeer waa dhawax dadku waxay ogyihiin inaad u timaadeen shirka ka dhacaya magaaladan marka maxaa u timaadeen idinma oranayo shirku see u dhici doonaa bal dadku aad bay u xiiseynayaan inay ogaadaan maxaa ka dhici doonaa shirka markaad tagtaan oo warbixin noo haysaa adeer waxa weeye shirku waa shir muhiim ah waxaa ku baaqday dowladda Ingiriiska waxaa lagu marti qaaday Soomaalida iyo ilaa 50 wadan iyo hay-adood oo caalami ah madax badan baa isugu imaanaysa marka muhiimad gaar ah oo aad ah oo weyn ayuu u leeyahay Soomaaliya waxaan filaynaa marka shirka in waxyaabo wanaagsan ay ka soo baxaan oo baritaaraya oo horumarinaya geedi socodka nabadda Soomaaliyeed waxaan rajaynaynaa maadaama Soomaalidu hadda aanu ka gudbayno marxaladii adkayd ee colaadda iyo dhibta aanu gudbayno marxalad cusub oo ah horumar iyo nabadgelyo in shirku marka wuxuu ku soo aaday marxaladaas kala guurka ee Soomaalida muhiimadaas gaarka ayuuna leeyahay waxaan fili doonaa wax fiican in Soomaaliya uga soo bixi doonaan haddii la yiraahdo oo lagu farxo haddii la yiraahdo shirkan ay martigelisay dowladda Ingiriiska oo dowladda Soomaaliya lagu saacsamay iyo dowlado fara badan doorka ay dowladda Soomaaliya ka qaadan doonto muxuu noqon doonaa waxa weeye anagu inaanu sharaxno inaanu hadda samaysanay itijaah wanaagsan inaanu samaysanay wado aanu ku soconno oo naga saaraysa kala guurka ku meel gaarnimada na gaarsiinaysa dowladnimo taam ah marka waxaanu kulay sheeganaa waxa weeye in shirka looga baahan yahay inuu taageero road mapka iyo hirgelintiisa inuusan noqon shir dacfuruur ah oo ajenda kale naga dhinac fura iyo yani wada kale la taageero road mapka dhamaystirkiisa si markaas 2012 aan u gaarno marxalad wanaagsan oo Soomaaliya ay yeelato dowladnimo cusub baarlamaan cusub iyo waxa la yiraahdo dastuur cusub marka processkaas socda iyo barnaamijkaas socda in shirku taageero ayaa rajaynaya haddii la yiraahdo waxaa jira dad madmadow galiya markii shirka laga hadlayo oo yiraahdo Soomaaliya oo kale waa la qabsanaya xornimada laga noqonaya arrintaas maxaa ka jiri kara adeer xornimada Soomaaliya dhiig badan baa ku daatay dad badan baa u dhintay wax sahal lagu cishan kara ma wax sahal cidi ay Soomaaliya xornimadeedii iyo qarannimadeedii ay ku dhibaateyn karto ama ay shubo u gelin karto maaha haddii ciisa ku fakiraysaa jirtana waa ay khaldan yihiin anagana nagama suurtowdo Soomaalina kama suurtowdo una malayn mayo wax noocaas inay jiraan waa iska hadal weeye ila taaniga warkaasi wararka suuqa aan ka maqalno weeye laakiin annagu waxaan meesha u nimid una fadhina maaha mana yeelayno runta taas weeye maalmahan dambe magaalada Muqdisho waxaa laga soo sheegayaa in nabad ay soo muuqanayso dowladdu ay guulo badan soo hoyeysay haddana shabaabkii waxay ku biireen al-Qaacida taas ma laga yaabaa inay dib mar kale soo cusboonaysiiso hadda shabaab awalba al-Qaacida ka mid ahaayeen haddii adduunyada cusubtay oo ay ku cusubtahay annaga nooma cusbayn weligoodna ma ay qarina waa sheegi jireen marka hadda anagu wax isbedel oo ku dhacay shabaab aniga ima muuqdo awalna al-Qaacida ahayn haddana waa yihiin laakiin runtaa weeye horumar weyn baanu ka samaynay dhanka nabadgelyada magaalada xamar ee Soomaaliya caasimadda oo ahayd 100% waa xor haddana yani xoreynta dalku ay sii socotaa xoreynta waxay ka bilaabatay Bay iyo Bakool saa ula socotaan mar dhowna insha Allah labadaas gobol waxay soo gali doonaan gacanta dowladda sidoo kale waxay ka socdaan jubbooyinka iyo gobolada dhexe marka waxaan rajaynaynaa waqti aan dheerayn in Soomaaliya ay qarannimadeedii iyo xornimadeedii iyo yani dowladnimadeedii ay dib u haanan doonto wadankan laga saari doono cadowga horumar iyo guulna aan rajayn doono waqti aan dheerayn haddii la yiraahdo aad iyo aad baa mahadsantahay daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa waraysyadii kala duwanaa ee la yeelanaynay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo waliba ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waxaa idinla socodsiinaya aniga Cabdinaasir Cirro waxaad kala socotaan Somali National TV magaalada London